iyadoo maalintii afraad uu galay tartanka horyaalka oradka caasimada Hargeysa ayaa lagu kala calaf qaaday kaalmaha laga galay oradka isugu jiray 400 mitir iyo 800 mitir kana socday garoonka Hargeysa Stadium degmada Axmed dhagax ee magaalada Hargeysa. Kaalinta koowaad ee oradka 400 mitir waxaa galay Maxamuud Xuseen Axmed kana tirsanaa kooxda Gaashaan waxaana uu orday 51 ilbiriqsi iyo 6 senti. Kaalinta labaad ee oradka 400 mitir waxaa galay Sharmaake Cilmi Ducaale kana tirsanaa kooxda Gaashaan waxaana uu orday 53 ilbiriqsi iyo 30 senti. Kaalinta saddexaad ee oradka 400 mitir waxaa galay Khaalid Cabdi Xuseen kana tirsanaa kooxda Goodir waxaan uu orday 53 ilbiriqsi iyo 85 senti. Sidaas oo kale kaalmihii laga galay oradka 800 mitir ayaa iyaguna lagu kala calaf qaaday kaalmana laga galay. Kaalinta koowaad ee oradka 800 mitir waxaa galay Axmed Yaasiin Siciid Cabdi kana tirsanaa kooxda Gaashaan waxaan uu orday 1 daqiiqo 57 ilbiriqsi iyo 43 senti. Kaalinta labaad ee oradka 800 mitir waxaa galay Khaalid Xuseen Yuusuf kana tirsanaa kooxda Shaqo Qaran waxaan uu orday 2 daqiiqo iyo 8 senti. Kaalinta saddexaad ee oradka 800 mitir waxaa galay Xamse Xasan Cabdi kana tirsanaa kooxda Laanta Socdaalka waxaan uu orday 2 daqiiqo 1 ilbiriqsi iyo 85 senti. Markuu soo dhamaaday oradku waxa warbaahinta la hadlay Maxamed Xasan Nageeye gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Somaliland waxaanu ka warbixiyay horyaalka oradka caasimada Hargeysa. waxaan halkan uga mahad celinayaa bahda saxaafadda guud ahaanteed waan ku salaamayaa magacooda saxaafadda waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa guddiga fulinta xiriirka ciyaaraha fudud Somaliland ee garsoorka ciyaartooyadii ka qayb galay tartanka horyaalka xiriirka ciyaaraha fudud macallimiintoodii taliyayaasha kooxahan runtii ka qayb galay tartanka runtii tartanku wuxuu marayaa waxa weeyaan waxa dhamaaday saafraabkii 800 iyo 400 baa dhamaaday oo runtii maanta lagu kala baxay waxaana orodkan lagu kala baxaya waxa weeyaan waa dhibco oo sida dhibcaha loo kala horeeyo weeyaan sida ilaa hadda aan arkayo waxa hogaaminaya kooxda Gaashaan baa hogaaminaysa oo dhibcaha ku hogaaminaysa halka kooxda Laanta Socdaalka iyo Shaqo Qaran runtii iyaguna kaalinta labaad ay runtii iyaguna isku isbarbar socdaan waxa runtii xusid mudan oo u mahad celinayna mar walba bahda saxaafadda oo ciyaaraha inay la shaqeyso diyaar u ah oo runtii mar walba inay dadka gaarsiiyaan ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland ka socda kala duwan runtii u taagan ayaan u mahad celinayaa iyagoo aan runtii helin xuquuq badan aan ka helin ma garanaysaa waxa ay tabinayaan haddana qaranka ay u shaqeynayaan oo nuu mahad celinaynaa markasta shaqada ay qabanayaan baan uga mahad celinaynaa. Dhinaca kale qaar ka mid ah macallimiinta gudoomiyaasha iyo ciyaartooyda madashaasi ka hadashay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan. waxaan orday ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan ku guuleystay 400 kaalinta koowaad waxaan u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan u mahadnaqayaa kale xiriirka Jamhuuriyadda Somaliland oo mar walba noo qabtaa magaranaysaa tartamo joogta oo 2021 ay bilaabeen ilaa haddana socda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo leeyahay magaranaysaa in la noo sii kordhiyo magaranaysaa tartamada oo insha Allah sanadka cusub ee bilaabmi doonana tartamo caalami la noo qabto aadna waan ugu mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha tartanka halkan noogu soo gabagabeeyay 800 mitir ee horyaalka qaranka Somaliland horyaalkii koobaad الحمد لله رب العالمين. حمزة حسن عبدي بي أردي كان صدحات بيجو صباح عيدا كسعودالك أيونو كوردي مقع كوردي مركا وأنا هريال كي كوبادي سومالن لا أي قبطة حرير كي سوء قاسمي كوجوليستي إن هي قبطان حرير كي هريال كي كوباد وحنلنا هاي قاسمها عصب shaqada qabatay waa shaqo qaranka u baahnaa maanta waanu faraxsanahay qaranka faraxsan maadaama ciidanka qaranku ay maanta kaalmaha ugu horeysa galeen waxaan kaloo halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xiriirka ciyaaraha fudud oo dadaal sameeyay waxaanan lagu dhicin ama lagu dhiirinin oonan xiriiradii hore ayna ku dhiirin karin ayay ku dhiiradeen Maxamed Xasan Nageeye aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo xoghayaha Abdiweli
والله شقة أدق بعد قبتين بالله ناي أد بندو مهسنتي بالله ناي أنا قلنا ددال كبرت أصلا كسي وضعنا مركي هورنا أوردكي كوري إذا ما أنا كوب جولسني إما كنا دبعها وقب بدنا أنا وضعنا أو دبعها إلا فرتنا قارينا إن شاء الله وحريال كنا وحن إن ربنا كوب جولسنا إن شاء الله حدود كنا وحن لنا برتها كسي وضع أو هكذا لنا أنا قلنا نجرب تاجنا هاي مركزتا وحن ولنا هاي مركزتا جولستا ولي بحن أدق ما حنا قاعد قدوم بيها أو يسوق كل ديردي إنه السماء محنا ضايع هوريال لما قبل شيء وحن أرد سوق شنانا وما كان أرد شناي وحن سوق شناي هل أرد بس سوق شناي أو سنة كام الله بشر لقبته لكن ما تروح كل ديردي إنه السماء هوريال إنه السماء أرد كي عيد ماذا إنه السماء الحمد لله رب العالمين وحن هالكن أدق ما قبنا يا تليها يجا هوجان كيجا أو يسوق مركز تدير رجلنا لا تاجن ما توحنا هالكن كوج قارني وهوجان كيجا أو نروح كستنا لا جرب تاجن ما أنت هي اللي هوا هي تليها أبو سريع دما تدور دما اسكت وغناي كوا تشيد تشوجا هي كوا هالكن تشوجا أردمنا وحن لنا ما أنت هنبلي وأنا بقول سنة لنا هاي قرن كجولستي بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو عبد الغني مولود أحمد وقدومية شقة قرن halkan waxaan horta ugu mahad celinayaa marka koowaad Ilaahay baa mahad alle marka labaadna wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo gudoomiyaha ciyaaraha fudud marka labaad anagu kaalinta labaad baan ku soo baxnay hadaan nahay shaqo qaran hore ugu ma soo qayb gali jirin laakiin sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan kaalmaha hore ayaan ku jirnaa inaan wanka ama tuuga insha Allah aan ku guuleysano aad waxaan uga mahadnaqayaa halkan agaasimaha shaqo qaran muwaadin oo arkaan u bandhignay oo ka soo jawaabay soona ajiibay aad buu mahadsan yahay kulay agaasimaha shaqo qaran waa markii ugu horeysay soo gasho isagaana yiri naga raali noqday inaanu ka soo qayb galno waana de agaasimo dhalinyarada soo saara magaalada Jamhuuriyadda Somaliland ee shaqo qaran agaasimahana aad baan hambalyo halka ugu direeyaa annaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa kaalmaha koowaad ama kaalinta labaad dhamaan aad baa u mahadsantiin waxaan aad ugu macdalinayaa gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud maxamed xasan nageeye waxa kaloon halkan uga mahad celinayaa dhammaan xiriirka ciyaaraha fudud oo iyo haweenadooda oo runtii si hagar la'aan ugu shaqeynaya hawsha loo idmaday waxa kaloon halkan iyadana aan ka salaamayaa taliyahayga ciidanka booliska maxamed saqadi dabagale anigu haddaan ahay tababaraha kooxda goodir inkastoo aan guuleysano kaalinta koowaad iyo talabaad ku guuleysano kaalinta saddexaad ku soo baxay runtii oo nin badan laakiin aan hoggaan haddaan nahay kooxda goodir aan hoggaanka soo hayn jiray ciyaartu waa barcad iyo barmadow maanta deeqeerkiin baa guuleystay insha Allah wixii ka dambeeyay ciyaaruhu mayna wali dhamaan orado badan baa haray 3,000 kulay oradadaas inaan ku guuleysto oo ku rajaynayo dhibcaha maanta iga maqan aan xagga dambe ka helo ayaan ku rajaynahay aad iyo aadna waan idin salaamayaa koobaad Ilaahay baa mahad iska leh oo igu sameeyay halkan garoonkan horyaalkii koobaad aan ka ciyaaray caasimada anigoo u orday ciidanka laanta socdaalka iyo jasiiradaha waxaan ciyaaray orodka 800 waxaanan hiidkii koobaad waxaan galay hiidkii koobaad ee orodada hore waxaan ka galay kaalinta koobaad maanta oo dambayso finalkan ciyaaray sirraabkina kaalinta saddexaad baan galay markasta waxaan leeyahay alxamdulillah Ilaahay baa mahad iska leh waxa kaloon halkan uga ka salaamayaa dhammaan bahda sportiska oo hore wasiirka agaasimaha iyo gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud waxaan bartan ka salaamayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha anigu maanta waxaan orday 800 baa orday kaalinta labaad baan galay alxamdulillah Ilaahay mahad iska leh كلي رنتي أنا جوا حفلي مكان كرونك سوق لي إلى كالتو كباد قليو لكن قدر كان دعاية الحمد لله وحنبرتنا أدوك السلام يا صاحبك عبد الغني ويسوي ركوب كلا شقة قرن أدبان والسلام يا سفيان والشقيق في عمان نقدر حيسا سو كلي وحن حاجة السلام يا صاحبك عبد السمد الحمد لله إلى ما هذا سكله إن شاء الله مرة كده محرجين أنا بس أنا أقول كوي إن شاء الله كوي دوره ما تنا كانت الواد بان قلي الحمد لله مركز تنا قدرك إن لو قر عافية عن أدبان السلام يا دماتير أحمد قرن وررك ملعب مقالة هرقيسا